dowladda Soomaaliya gaar ahaan guddiga sare ee maamulka bangiga dhexe ayaa maanta meel mariyay in laba bangi la siiyo sharciyad ay kaga howlgali karaan gudaha dalka waxayna xarumo ku yeelan doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dalalka Masar iyo Turkiga ayaa laga kala leeyahay labada bangi ayaa kala ah siraacaad banki oo laga leeyahay dalka Turkiga waxa iskala dowladda waana mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan ee gudaha dalkaas imaanshihiisa Soomaaliya waxa uu door weyn ka ciyaarayaa iskaashiga dhaqaale ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga oo sanadihii u dambeeyay kobcayay xilligii uu xukunka joogay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la xaqiijinayaa in la soo bilaabay imaanshihiisa dhul loogu talagalay dhismihiisana la siiyay kaasoo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bangiga labaad waa mid laga leeyahay dalka Masar xiriirka ganacsi ee Muqdisho iyo Qaahira waa mid jira sheekooyin xiiso leh oo ah kuwa taabanaya siyaasadda geeska Afrika amniga iyo dhaqaalaha ayaa ku hoos duugan bangigan warintiisu ma soo bilaaban maanta dhammaadkana uma muuqato waqtigan dabayaaqadii sanadkii 2019 dowladda Soomaaliya oo xilligaasi hogaaminayay Farmaajo waxay heshay codsi ka yimid dowladda Masar oo la xiriiray in bangigan loo ogolaado inuu ka shaqeeyo Muqdisho xilligaasi waxaa jiray macluumaadyo tabinaya in Imaaraadka Carabta oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxaynin Soomaaliya ay qorsheynayaan inay bangiga saameyn ku yeeshaan dhaqaalana mariyaan Farmaajo iyo saaxiibadiis kama jawaabin codsigaas bilowgii 2020 waxaa jiray is-arag dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana isdhaafsadeen macluumaad la xiriira bangigan Addis Ababa waxay ka walacsaneed saameynta ay Masar ku yeelato Soomaaliya sababtuna waa labada dal oo isku haya biyaha wabiga Niilka markaas oo ay isqabtaan Qaahira iyo Addis Ababa waxay muhiim u arkaan iskaashiga Muqdisho waana ag taariikheed ay muddo dheer isku hayeen xilligaasi isqaadashada ama xiriirka Masar iyo Imaaraadku uu sii xoogaysanayay sidaas la mid ah isfahamka Muqdisho iyo Addis Ababa waxa uu ahaa mid xoogan laba garab ayaana loo kala safnaa bangiguna waxa uu dhexyaal u noqday ishaysiga siyaasadeed iyo xaaladda gobolka oo si weyn loogu laacdamayay fiila Soomaaliya waxa la aaminsan yahay in codsiga Masar hoos dhigtay oo aysan waxba ka soo qaadin balse mar kale hilaadii 2020 dhamaadkeedii Qaahira ayaa doonisteeda bangigan soo qadintay markan guddiga dhexe ee bangiga ayaa Farmaajo iyo kooxdiisu u gudbiyeen jawaabta guddiguna waxay noqotay diidmo cad oo ay soo saareen waxay sabab uga dhigeen guddigu inuusan buuxin shuruudihii loogu talagalay ayna tahay in awoodda la saaro sidii loo kobcin lahaa bangiyada Soomaalida dalkana uusan xilligan qaadin karin bangiye ajnabi Agoosto 2021 ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa tagay Masar mar kale Qaahira waxa ay soo gudbisay dalabkeeda ah in bangigan laga furo Muqdisho ka hor inta aan la qaban doorashooyinka madaxtinimada balse ma hirgelin tallaabadaas iyo dalabkaas iyadoo waliba uu xilligaasi taagnaa khilaafkii Rooble iyo Farmaajo balse xukuumadda Soomaaliya waxa ay ballan qaaday in wafdi ka socda bangiga dhexe ay imaan doonaan Masar isku murugsanaan soo baxday mar kale booqashadaasi kadib waxaa jira xogo ay isdhaafsadeen Itoobiya iyo Soomaaliya oo ku wajahan arrinta Masar ee damaceeda waxaanu macluumaadku xilligaasi cadeeyeen in bangiga ay Masar ay ku leedahay wax aad u yar marka loo eego cidda maalgashiga iska leh oo dowladda Imaaraadka Carabta ah Addis Ababa Abu Dhabi uma arkaynin dhibaato balse doorka Masar ay ka walaacsanayd dowladda federaalkuna walaac badan kama qabin Qaahira waxayse ka walwalsanayd saameynta Imaaraadka Carabta iyadoo waliba xilligaasi doorasho lagu jiray 20kii bishii Febraayo ee sanadkan wafdigii bangiga dhexe ayaa tagay Qaahira 23kii isla bishaasna waxa la gaaray isfaham la kala saxiixday kaasoo dhinaca Masar uu matalayay Tariq Ameer oo ah gudoomiyaha bangiga dhexe ee Masar halkaas ayaa mar kale sheekada bangiga lagu karkariyay si loogu qaado markan xagga Muqdisho bartamihii bishii Maaris ee isla sanadkan Soomaaliyana ay dhexda uga jirto doorashooyinka baarlamaanka madaxda sarena ay iskhilaafsan yihiin waxa soo laabtay dalabkii Masar oo ka xoog badan sidii hore sababtuna waa in hogaamiyaasha Soomaalidu ay doorasho ku jiraan dhexdoodana ay hayaan guddiga bangiga dhexe ayaa mar kale lagu celiyay inay go'aan ka qaataan arrinta bangiga Masar 28kii Maarso ee sanadkan guddiga sare oo kulan fogaan araga yeeshay ayaa iska diiday dalabka furitaanka bangiga Masar laga leeyahay ee Muqdisho waxayna mar kale sabab uga dhigeen
isla qodobadii hore waxaa la aaminsanaa in madaxtooyada Soomaaliya ay ku xooganeed guddigan oo go'aanku uu sidaasi ku yimid isbeddelkii 15 May doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliya ayaa bedeshay jawiga siyaasadda ee gudaha dalka waxaana madaxweyne noqday Xasan Sheekh Maxamuud oo wada iyo saaxiib dhow la ah dawladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta tallaabadaasi waxa ay diila gelisay qorshihii bangiga ee hore u jiray isbaacsiga Qaahira iyo Addisna ee ku wajahnaa Muqdisho waxa sana maray tii Masaarida 12 maalmood kadib doorashadii madaxweynaha faa'iido kale oo ay Masar tirsatay in dhankeedu jirto ayaa dhacday Ethiopia la aaminsan yahay inay waabaayo ahayd waana magacaabidii agaasimaha NISA oo noqday Mahad Maxamed Salaad oo waxbarashadiisu dugsi sare ilaa jaamacad ku qaatay Masar booqashadii madaxweynaha Soomaaliya ee Imaaraadka madaxweyne Xasan ayaa dhawaan ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta iskaashiga dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga ayaa la isku raacay sida uu sheegay hadal hayeenka madaxweynuhu maalmo kadib waxaan ogaanay inuu jiray kulan gaar ah oo dhex maray qaar ka mid ah kooxda bangiga iyo agaasimaha NISA kooxda waxaa la dejiyay halkii ahayd xaruntii ololaha doorashada ee madaxweyne Xasan Sheekh taas oo ay ku sugayeen go'aanka guddiga sare ee bangiga dhexe sidee loo gaaray go'aanka sida ay noo xaqiijeen xubno ka mid ah guddiga sare ee bangiga dhexe go'aanka habeennimadii xalay ayaa la qaatay waxaana guddigu ay ku kulmeen mar kale aaladda fogaan aragga dood iyo waqtina kama qaadan qaashada qaraarka iyadoo shalay gelinkii hore uu jiray wada hadal cadaadis lagu saaraya bangiga dhexe inay meel mariyaan go'aanka kaasoo ka imaanaya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya faa'iido ma leeyihiin bangiyadani warbixinta bangiga dhexe ka soo baxday waxa lagu cadeeyay inay kor u qaadayso kobaca dhaqaalaha ee dalka uu yahay maalgashi dhinaca kale bangiyada gudaha qaarkood walaac ayay muujinayaan balse tartan furan oo suuq ayay noqon karaan bangiyadan Soomaaliyana bangiyo badan oo kale ayaa ku dhiiran kara ay leeyihiin dadka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga dhinac kale waa faa'iido iyo khasaare isbarkan dawladda Soomaaliya uga baahan feejignaan dheeraad ah oo la xiriirta waxa la kala leeyahay iyo waxa la wadaagi karo iyo dhammaan hanaanka lacageed ee bangiyadan maraysa ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka